another banger. Baby, calm down. Somaliland. Bisha November ayaa lagu waday inay Somaliland ka dhacdo doorashada madaxtinimada, balse dib ayaa loo dhigay. Tani waxay leedahay caado gaar ah, laakiin dhibaatada hadda jirta si fiican looma soo dhoweyn meel kasta. Hargeysa, caasimadda Somaliland. Waxaa diyaarshay Saleymaan Cumar. Waa galab magaalada labaad ee Somaliland ugu weyn ee Burco. Isaga oo meel kasta muwaadin salaad u yeedha, Cabdiraxiim Yama Yaasiin waxa uu hor fadhiyaa dukaankiisa. Tilmaamayaal, suunka fisuunka iyo dhalooyinka saliidda ayaa lagu dhejiyey khaanadaha. 8 jirkan ayaa ka ganacsan jiray agabka baabuurta. Laakiin 3 sano ee la soo dhaafay, wax macaamiil ah ma imaan. Waxaan xiri jiray dukaankayga gebi ahaan, waxaa jirtay mar aan shay ama laba ku iibin jiray 4-5. Maanta xitaa ma helo hal eber, ayuu yidhi. Abaaraha ka jira Geeska Afrika ayaa saameyn xun ku yeelanaya dhaqaalaha Somaliland. Marka loo eego qiyaasaha ay soo saartay hay'adda gargaarka degdega ah ee Qaramada Midoobay OCHA, in ka badan 3 milyan oo qof oo ku nool Itoobiya, Soomaaliya iyo Kenya ayaa si degdeg ah u baahan gargaar. Somaliland, oo ah gobol ku yaala waqooyiga Soomaaliya oo ku dhawaaqay gooni isutaagga sanadkii 1991, balse aan loo aqoonsan dal gaar ah, ayaa sidoo kale aan si buuxda uga soo kaban dhibaatadii abaarihii hore. Horumarka siyaasadeed ayaa xaaladda ka dhigaya mid aad u adag. Cabdiraxiim Yama Yaasiin ganacsigiisu waa xun yahay. Runtii waxay ahayd in doorashada madaxtooyadu qabsoonto bisha November ee sanadkan. Laakiin bishii Sebtembar, golaha guurtida ee saamaynta ku leh ayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi u kordhiyey muddo 2 sannadood ah. Waxaa laga yaabaa in doorasho dhacdo sanadka soo socda, laakiin tani weli lama hubo. Wasiirka Maaliyadda Somaliland Sacad Cali Shire ayaa arrintaas si fudud uga hadlay. Waxa uu xukuumadda ka tirsanaa 2 eber hal eberkii, waxaana uu ahaa wasiirka qorshaynta iyo wasiirka arrimaha dibadda. Labada madaxweyne ee ka horreeyey madaxweynaha mid walba 2 sano ayaa loo kordhiyey, inkastoo 5 sano xilliga dastuuriga ah uu yahay 5 sano, haddana waxay noo noqotay caado. Golaha guurtida Somaliland ayaa go'aamiya xilalka xisbiyada. Mucaaradku si ka duwan ayay u arkaan. Xisbiga mucaaradka ah ee ugu weyn waddani waxa uu ku nuuxnuuxsaday in 3 Noofambar aanu mar dambe u aqoonsanayn madaxweyne Cabdi inuu yahay madaxa sharciga ah. Doorashadu markii hore waxay ahayd inay qabsoonto maalintaas. Dhammaan muddo kordhintii hore ee loo igmaday waa ay aqbaleen cid kasta oo ka mas'uul ah, waxa ay ahayd in ay guurtidu hore ugala tashato dhammaan howlwadeennada. Taasi may dhicin, ayuu yidhi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo ah aasaasaha xisbiga waddani. Waxa uu galay kaalinta labaad doorashadii madaxtinimada ee 2 eber hal 7. Wasiirka Maaliyadda Sacad Cali Shire ayaa u arka dib u dhigista doorashada mid aan dhibaato lahayn. Mucaaradku waxa kale oo ay dhaliilayaan in golaha guurtidu ay go'aan ka gaadhaan muddo kordhinta. Weligiis lama dooran tan iyo markii gobolka la aasaasay, laakiin had iyo jeer wuxuu kordhiyey muddada xilka. Markii hore waxay ahaayeen rag ka weyn, caqli badan, la ixtiraamo, ayuu yidhi Cabdulaahi. Maanta carruurtu waxay ku fadhiisan lahaayeen kuraasta iyaga oo aan buuxin shuruudaha. Doorashada sanadkan ayaa laga yaabaa inay mucaaradka meel xun geliyaan. Xaaladda waxaa sii murgiyey wax u gaar ah dastuurka dalka Soomaaliya. Si looga hortago in muuqaalka xisbigu burburo, 3 xisbi keliya ayaa loo ogol yahay midkiiba 10 sano. Shatigoodu waxa uu dhacayaa 7 Diseembar. Waddani ayaa si xoog leh uga soo baxay doorashadii baarlamaanka ee sanadkii hore, isagoo hal kursi ka helay xisbiga kulmiye ee madaxweyne Cabdi. Sidaa darteed Waddani waxa uu ku adkaystay in doorashada madaxtooyada la qabto ka hor inta aanay isbahaysiga xisbiyadu dib u ururin. Midkoodna ma laha saamayn wanaagsan oo dibadda ah. Inkasta oo Somaliland dawlad leedahay baasaboor u gaar ah iyo lacag u gaar ah, haddana waxaa keliya oo caalamka laga aqoonsan yahay Taiwan. Dalku waxa uu u dagaalamayay in uu xubin ka noqdo Midowga Afrika 10 sano. Haddii ay taasi ku guulaysato hal maalin,
markaas waxaa jiri lahaa dayn laga heli lahaa Bangiga Adduunka iyo Sanduuqa Lacagta Adduunka ee IMF. Hadda dhaqaaluhu wuxuu ku tiirsan yahay xawaaladaha qurbaha iyo warshadaha xoolaha. Khilaafku mar walba waxa uu dib u dhigayaa maalgashigii, ayuu yidhi Wasiirka Maaliyadda Sacad Cali Shire. Dadka qurbaha ku nool gaar ahaan kuwa aan meesha joogin waxay qabaan aragti ka duwan xaaladda amniga. Iyaga iyo maalgashadayaasha shisheeye midna laguma dhiirigeliyo inay dalka yimaadaan oo ay maalgashadaan. Somalilan waxay ku nooshahay dhaqashada xoolaha. Si ka duwan Soomaaliya, Somalilan waxa ay had iyo jeer ku nuuxnuuxsatay in ay nabad tahay oo ay ka sarreeyaan dimuqraadi ah. Taasi waa inay sidoo kale ka caawisaa aqoonsiga. Laakiin xadidaadda xuquuqda asaasiga ah ayaa sii kordhaysa dhaleecaynta. Bishii Agosto, 5 qof ayaa ku dhintay mudaharaad looga soo horjeedo dib u dhigista doorashada. Ugu yaraan 1 eber ayaa ku dhaawacmay sida ay sheegeen mucaaradka. Xabdhiga sharci darrada ah ayaa kordhay 2 sano ee la soo dhaafay. Xaaladda siyaasadeed awgeed ayay dhaleecaysay Khadija Muuse oo ka tirsan gogga maxalliga ah ee xarunta xuquuqul insaanka. Dastuurku wuxuu damaanad qaaday xorriyadda hadalka iyo isu imaatinka. Sidaa darteed ma jiro sababaha loo xiro suxufiyiinta. Ma jiro qof ka mid ah dadka ku jira baarlamaanka Soomaaliya oo dumar ah. Khadija Muuse ayaa sidoo kale dhaleecaynaysa xaqiiqda ah in baarlamaanka oo aan helin hal haween ah tan iyo doorashadii 2-2 ay qoreen warbixinno kadib bannaanbaxyo, laakiin cidina lama xisaabtamin. Dhaqankeena, bulshada iyo deegaanka dimuqraadiga ah, caasin kasta oo bulsho waxaa loo arkaa dowladdiid. Tani waxay sidoo kale saamayn xun ku leedahay sumcadda caalamiga ah. Magaalada Burow, galkiilaha baabuurta Cabdiraxiim Yama Yaasiin galabtii dib dambe waxba ugamuu iibin. Waxa uu rajaynayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay doorashadu u dhacdo si xaaladda dalka ay wax uga beddesho. Haddii aysan doorasho dhicin, ma rabo inaan sii joogo halkan, kadibna waan dhoofayaa.